dood cilmiyeysan oo lagu qabtay dalka Netherland gaar ahaan magaalada Hague ayaa lagaga hadlay isdhexgalka dhaqamada kala duwan ee dal kaliya ku wada nool gaar ahaan dalkan Holland oo ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan oo aan asal ahaan ka soo jeedin ama u dhalan dalka Netherland sida Turkida, Marookaanka, Surinaamka iyo Soomaalida. kulankan ayaa lagu marti qaaday aqoon-yahano ay ka mid yihiin Professor Ahmed Ismail Samatar oo ka socday James Wallace University iyo ardayda jaamacadda Macalester College ee dalkaasi Mareykanka. Professor Rinus Bennings oo ka socday jaamacadda Amsterdam, Professor Cabdiraxmaan Al-Aysati oo ka yimi jaamacadda Tilburg, Bastian Verbergen oo ka tirsan xisbiga Groenlinks oo ah xisbi u ololeeya deegaanka, iyo Imaan Maxamed Khaliil oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ee dalka Netherland. Kulankan ayaa si weyn loogu gorfaynayay sida ay dalka Netherland ugu wada nool yihiin dadyow kala duwan oo ay qaarkood leeyihiin caqiido, midabyo iyo afkaaro kala duwan. waxaa kulankan suuro geliyey hay-adda Dalmar Foundation oo si weyn uga qayb qaadata isku xidhka Soomaalida Holland ku dhaqan iyo qowmiyadaha kale ee dalka Netherland ku nool. doodan oo ay qayb libaax ka qaateen Professor Ahmed Ismail Samatar iyo ardayda ka yimid jaamacadda ku taala dalkaasi Mareykanka oo u yimid dalka Netherland daraasad iyo in ay helaan warbixin ku saabsan isdhexgalka iyo wada noolaanshaha ummadaha kala duwan iyo sidii ay Netherland u soo dhoweysay dadka la soo degay ee ku nool dalkeeda. kadib warbixinadii ay soo bandhigeen aqoon-yahanadu, gebagabadii ardayda ayaa fursad u helay in ay weydiiyaan aqoon-yahanada reer Holland waayo aragtinimadooda ku aadan integrationka ama wada noolaanshaha ummadaha kala duwan ee meel keliya wada degan, kuwaasoo mid mid uga jawaabay su'aalihii ay ardaydu weydiinayeen. maaha markii ugu horreysay ee uu Professor Ahmed Ismail Samatar uu ka qayb galo dood weyn oo noocan oo kale ah oo lagu qabto dalka Netherland.